بروفيسور كينان فلانقيا تهي غرفيا تهي aqoonyahan baa tahay gobolka ku nooshahay gobolka waxa ka socda tartanka burburka waxayna ku hareeraysan Ethiopia geopoliticska waxa meesha ka socda maxayna ku yeelan karaan innagaas basodon iyo xoogaaga israadinayna inaga ruuxeenu saameyn nooceena ku yeelan karaan laga soo bilaabo qarnigii 14aad anigu intaan wax akhriyay ama aan garanayo geeska Afrika waxa isku hayay laba xoogna Soomaali buu ahaa xoogna Abasiiniyiin bay ahaayeen wax kale oo jiray anigu ma arko Soomaalidu islaam bay ahaayeen Abasiiniyiintuna Qibtiyiin Kiristiyaan ay ahaayeen maanta iyada oo dhinac kale ayaa taagan anigu sidaan u arko marka qadiyadan dawladnimada Soomaaliyeena waligeed waxay ku daabnayd arinta guud ee gobolka ka taagan ee la yiraahdo qaabka geopoliticska ee geeska Afrika dagaalkii labaad markaynu u noqono markii Ingiriisku wada qabsaday dalka Soomaaliyeed iyo Eritrea oo Talyaani laga qabsaday jamciidda quruumaha ka dhaxaysa iyo dalalkii ku guuleystay ayaa go'aamiyay cidda dawlad geeska Afrika noqonaysa laagadi dagaal aad u baan bay ka gashay Soomaalida qaybaheeda kala duwaneed laakiin sidii iyagu markay iyaga ku heshiin waayeen yaa UN to marka la asaasay yaa lagu wareejiyay UN dadkii baa xoreysteen waxa go'aan lagu gaaray wax u eg Soomaaliland inay xornimo qaato laakiin immediately ay la midoobaan meesha waxa laga saaray qorshe kale oo ahaa in dhulka Soomaalida oo dhan la mideeyo hal dawlad la hoos keeno ama UN la hoos geeyo muddo ah si ay dawladnimo u diyaar garayso oo quwadihii waaweyn ay isku qabaan inay dadka qaar baa ku doodaya Ingiriisku daacad kama ahayn iyo daacad kuma aha anagu waxaan qiimeynaynaa waxa qoran ee record-ka ee la akhriyay siyaasaddu daacadnimo kuma dhisna mar walba siyaasaddu waxay ku dhisan tahay waxa la isiraaho iyo waxa lagu heshiiyo mar walbana cid baa wax loo isgaraysa cidna wax way geeygaraysa in kastoo marar qaar kood dhici karto in laba tartamaysa labadaba ay loo isgarayaan ay dhici karto marka waxa dhacday in sida wax loo qaabiyay dhulkii qaar Ethiopia dib loogu wareejiyay arintiisana ay sababtay dawladnimadii cusbayd ee Soomaaliya inay markiiba lagu hal gasho miina ah dhulkaas ee qowmiyadda Soomaaliya la bixiyay oo runtii aanu arko inay meeshii aasaaska u ahayd qaranka Soomaaliyeed guud ahaan ubuucda u ahayd iyo dawladdii Soomaaliyeed saldhigeedii in markii dambe uu soo gaaray iyadii inay wax noqoto burburto marka Eritrea oo kale waxa ku dhacay oo iyada lafteeda ku tusaysa sida qaacidooyinka ay sameeyaan dalalka ajnabiga ay marka dambe aafi isugu rogaan Eritrea waxa Mareykanka ayaa wuxuu UNT markay iyagu ku heshiin lahaayeen UNT lobby uga galay inuu yiraaho anigana saldhig meesha communication-ka ahaa oo Asmara agteeda ku yaala isiya anna waxaan lobby u galayaa Ethiopia in Eritrea aanay dawlad madax bannaan noqonin laakiin qaab federation oo kala ah Ethiopia la noqoto sidii baa lagu heshiiyay dadka Eritreanka ah qadiyadoodii iyo waxba laga soo qaadin waxa loo heshiiyay ambitionkii boqorkii Abyssinia dawladda Ethiopia iyo dantii dawladda Mareykanka maxay sababtay 10 sano kadib ama 5 sano kadib inuu yiraaho Haile Selassie Federation-ka waan baabiyay dalkay ka tirsan tahay waa waxa ku iman kara bari Soomaaliya oo kale ku iman waa arinta federaalka ama confederation-ka waxa la yiraahdo yani qaar baa bari iman kara waxa waan baabiyay inay yiraahan bari marka dadka aaminsan waa inay ka digtoonaadaan arinta siyaasadda la isuma naxariisto marka maxaa ka dhashay waxa ka dhashay arintan oo dadku aanay isku xirxireen sida nuqdadaha in la isoo xirxiray ay muhiim u tahay waxa ka dhashay 61 dagaal bilowday Eritrea oo 19 soo afjarmay oo Eritrea ku xirowday
haddii Eritrea dadka Eritrea xuquuqdooda loo ogolaan lahaa maalinta loo ogolaan lahaa maanta geeska Afrika qaabkiisa geopolitical orderka wuxuu ahaan lahaa si kale maxaa kaloo ka leeftay Soomaalida qaybintii la kala qaybiyay awgeed in Soomaaliya saldhig ay u noqoto dagaalkii Ethiopia ka socday ee Eritreantu ay wadeen iyo kii Tigreega ay ku wadeen dawladda Ethiopia in ay caawiso oo toos ay ugu lageen marka waxaad dhihi kartaa dawladda Soomaaliya runtii ama si dadban ama si toos ah qayb ay uga ahayd xoogagga jira ee saameynta ku leh waxa geeska Afrika ka dhacaya ama si dadban ama si toos ah marka arrimuhu sidaas maanta anigu waxa ii muuqda 100 sano ka hor qaabaysigii nooca ahaa ee socday oo 80 sano la soo dhaafay hadda arrintii Eritrea ku bilowdeen wax u eg inuu ka socdo dagaalkan maanta Ethiopia ka dhex socda wax Soomaali ay shaqo ku leedahay ma aha laakiin waxa hubaal ah saameyn weyn uu ku yeelan doono naqshadda geopolitics-ka ee geeska Afrika Soomaaliya ku jiro xaqiiq weey anigu arrinta waan ku dooday waana ka qoray dalalka iyo xuduudaha maanta jira waxba iska bedeli anu saan u arko maxaa dhici kara ama han noqoto waxa dhici kara Ethiopia iyo Eritrea oo midooba waa wax dhici kara Ethiopia Eritrea oo damacda in Djibouti ay dhul ka qabsato waa wax dhici kara horeyna isugu day Ethiopia iyo Eritrea oo ku heshiiyay inay Djibouti ka takhalusaan waa wax dhici kara haddii ay isku khilaafi waayaan Ethiopia oo damac ka galo dhulka Soomaalida ah ama iyagoo leh koox Soomaaliyeed baan la heshiinay ama xoog isku daya qayb Soomaalida kamid ah ama gobol Soomaalida waa wax suuragal intaas waxa kale oo suuragal ah Eritrea oo sideeda u jirta Ethiopia oo kala go'da oo Tigreegu ay u soo noqdaan dawlad madax bannaan inay noqdaan waa wax dhici kara marka qaabayntaas waa wax aad iyo aad suuragal dadka Soomaalida way iska yar hurdaan qaar ahaan dabaqada siyaasadda way ka hurdaan arrintan walwal weyn ba aniga igaga jira in arrinta aan lala soconin waayo waligeed ba arrintan saas soo xirneed waxa way 8 qarni baa laga joogaa marka aan ku iri Soomaali iyo Abasiiniyiin baa ku dagaalamay waxa kale oo dhan inta hadda aan sheegnay Eritrea qaybteeda waqooyi ee Kristaan qabdiinta waxay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa Abasiiniya hidahan marka intaas oo idil waa wax suuragal ah weey suuragal macnaheedu ma aha inay dhici laakiin waa scenario macquul ah weey marka in at least la ogaado waa arrin laga maarmaan ah weey aad iyo aad ba mahadsantahay Professor Keenan